gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo wafdi ballaaran oo horkacayo isla markaana ay ka mid yihiin musharaxa u tartamaya jagada gudoomiye ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani hogaamiye Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo sidoo kale siyaasi Abiib Diiriye Nuur Abiib Timacad iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan ayaa soo gaaray magaalada Gabiley waxayna shacabka reer Gabiley kala kulmeen soo dhaweyn ballaaran mas'uuliyiintani oo la shaahay shacabka kala duwan ee magaalada Gabiley ayaa waxa halkaasi kala hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaanu sheegay oo kala hadlay shacabka reer Gabiley arrimo khuseeya gobolnimada Gabiley gobolka Gabiley qofkii walaalaha badnaa la u naxariistay wuxuu ahaa Axmed Muuse Geedi Sanjab ilaa 2002 wad xukuumadda badan baa u ballan qaaday Gabiley inay gobol hesho maantana madaxweyne Muuse jooga hadduu madaxweyne Muuse ka baqday gobolnimada Gabiley anigu waxaan ballan qaadayaa inaan Gabiley waa gobolka wax soo saar insha Allah kaasaan ku tixgelin doonaa horumarka wax soo saarka Gabileyna kor baan u qaadi doonaa hadii la haydo insha Allah wax badan ma wax ka qaban doonaa oo ay ka mid tahay in shacbiga Soomaaliland laga saaro qabyaaladda iyo qoqobka danteenu waxay ku jirnaa in Soomaaliland nahay marka reer Gabiley dadka codeeye ugu badan baatii gobol marka la eego gobolnimadan xaq baa u leeyahay hadii hore looga baqay anna waan ku dhacaya wadano ku dhacaya siyaasi Maxamed Cabdilaahi Jaamac Booq oo kamid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaridka ah ee wadani waxaanu si kaliya laaba ugu soo dhaweeyay gobolka Gabiley mas'uuliyiintani waxa halka maanta inoo farxad weyn Gabiley bartamihii Gabiley inaynu maanta ku soo dhaweynayno madaxweynaha mustaqbalka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo la socda wufuud badan oo la socda gudoomiye Xirsi anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarta ganacsatada mas'uuliyiinta gobolka Gabiley oo kale soo dhawaadeen leeyahay mar iyo laba iyo saddex maanta gudoomiye wad arkaysaa way ka duwan tahay Gabileydii hore maaha way ka duwan tahay maanta Gabiley waxay u heelan tahay isbedel bay u heelan tahay maanta inta halka ku fadhiyo cisho dhaweyd oo madaxweynihii waliba isagoo madaxweynihii wadanka ah oo sita darajadii ugu sareeyay wadanka intaasi dhalinyaro maanta meeg joogin waa la ogiyay inta maanta dhalinyartii ka iftiimaysay Gabiley meeg joogin waa laga qarinayay kamaradaha waa la wada qarinayay laakiin maanta wax la qarinaya ma jirto dadku diyaar bay ku yihiin madaxweyne ay ku soo dhaweynayaan 100% waxay dalkani maanta u helayeen horta Gabiley haddaan nahay reer Gabiley nahay waa la xoqday kaarka qabyaaladda mar baa la xoqday mar labaad ma mid la xoqan karo maaha laakiin markuu ninka siyaasiga wax doonayo ayuu qabyaalad iyo kaar qabyaalad xoqdaa wariyayna kaar qabyaaladii loo xoqonin ee runta maanta maxaa u dana Gabiley maxaa u dana Soomaaliland aynu isweydiino maanta Gabiley gobol bay rabtaa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilka Case Universal TV Gabiley